Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Maxamed Caraale ayaa maanta dhagax dhigay mashruuc biyo xireen loogu sameynayo magaalada Beledweyne si loo maareeyo fatahaadda webiga Shabeelle iyo daadadka biyaha ah ee dhanka Itoobiya ka yimaada ee sanad kasta saameyn aan wanaagsaneyn ku yeesha bulshada Beledweyne. Munaasabadda dhagax dhigga waxaa goobjoog ka ahaa guddiga gurmadka ee ka socday Somaliland, guddiga gurmadka fatahaadda Beledweyne, odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala gedisan ee bulshada rayidka. Biyo xireenkan oo ay ku bixi doonto dhismihiisa lacag malaayiin dollar ayaa loogu magac daray Hargeysa, iyada oo laga duulayo sidii ay shacabka iyo madaxda Somaliland ugu soo gurmadeen qoysaskii ay saameysay fatahaadii webiga Shabeelle ee Beledweyne. Guddiga gurmadka Somaliland ka socday ayaa durba goobta kaga yaboohay lacag dhan 400 kun oo dollarka Mareykanka ah oo ay dhankooda kaga qayb qaadanayaan dhismaha biyo xireenka Hargeysa ee Beledweyne lagu wado in laga hirgeliyo. annagu waxaanu nahay guddidii taakuleynta Beledweyne ee ka timi Jamhuuriyadda Somaliland. waxaanu u nimi inaannu halkan u keenno qadar lacageed oo gaadhaya 600 kun oo dollar oo aanu ugu talagalay ciddii ay waxyeelaysay fatahaadda Beledweyne. waxaannu isla garannay annaga iyo guddidii taakuleynta Beledweyne, gobornatorihii barasaabkii iyo odayaashii dhaqankaba in lacagtaa looga faa'iideeyo in Beledweyne lagaga duwo biyaha ku fatahaya oo loo sameeyo jannaladii ay mar lahaayeen. waxaa lagu qadaray lacag dhan feasibility study-gii uu sameeyey barasaabku isagaa ka warrami doona 7 milyan iyo siyaado. waxay noqotay waryaa ku dhiiranaya ee bilaabaya lacagtaas. waxaa nasiib u helay inay lacagtaa bilaabaan Jamhuuriyadda Somaliland, madaxweynaheeda iyo shacbigeeduba inay 400 kun oo dollar ku bilaabaan kuna dhex dhigaan saaka in mashruuca lagu furo. lacagtaasi waxay ka dawo tahay bilowga maanta bilaabmay inuu insha Allahu Ilaahay nooga dhigo dhammaadkana inoo raaciyo 400 kun ee mashruuca maanta aynu ku bilownay insha Allahu way ku dhammaanaysaa, waana laga hawlgelayaa, waana laga wada shaqaynayaa. lacagtii soo hadhay inta kale 200 kun ahaana waxaanu nidhi dadkii baahidu ku sii jirtay ee tabaalaysnaa iyadana intaa loo qaybiyo. Guddiga gurmadka fatahaadda Beledweyne ayaa iyana dhankooda kaga mahad celiyay shacabka iyo madaxda Somaliland sidii ugu soo gurmadeen walaalahooda saameynta ay ku yeelatay fatahaadii webiga Shabeelle ee Beledweyne. waxayna hoosta ay ka xariiqeen in lacago horey ay u hayeen iyo ballanqaadyo kale oo loo ballanqaaday ay jiraan, tanana dhiirigelin ay ka sii qaadi doonaan si Beledweyne looga hirgeliyo biyo xireen. waxaan leenahay walaalo jira Somaliland waa ka filaynay. waxa weeye taas iyo mid ka badan isku leenahay, abaalkeedana ma gudi karno. ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa idin abaal gudi kara. waxaan leenahay lacagta 600 kun ay keeneen, 200 dadkii baahnaa ayaa deeq loogu qaybinayaa sida ay ayagu garteenba. 400 kunna waa taa halka ay ku dhagax dhigeen ay ka bilaabeen biyo xireenkii. annagana guddigii hore oo hawsha waday waatii aan maalin dhaweed sheegnay 130 kun oo dollar ayaan haynaa. markii la isku daro waxaan haynaa 530 kun oo dollar. shirkadda Dahabshiil waxay ku deeqday 150 kun oo dollar oo ka dheeriya lacagtaani ku soo deeqday. Dahabshiil waa Soomaali, ma aha macnaha meel looma dhisbayn karo. hase ahaatee fadhigeedu waa Hargeysa. lacagta 150 kun oo dollar ee hore u dhiibeen, lacagtan socotana 50 kun oo dollar ayay ku soo dareen. lacagaha deeqaha marka la isku daro waxa hadda Soomaaliland naga soo gaaro waa milyan iyo lacag ka badan qiyaastii marka la fiiriyo halka gobolkan ee hadda ku leeyahay fatahaadda. tan kale u baahan barnaamijkan waa ka wada hadalnay madaxda shirkadda Hormuud si gaar ah u danaynayaan. anigoo ku hadlaa magacoodan waxaan ballan qaadaynaa qaybta ugu muhiimsan ama ugu badan inaan ka qayb qaadan doono haddii la yiraahdo. maxay ahayd qof walban abaalkay geysatay waa u yaala sida guusha gaarka oo Somaliland wax yimaad ayda ugu horeysay, haddana wax yimaado oo dhagax dhiga oo mashruucii iyo dhibaatadii dhacday ka dhagax dhiga haddana ayaga ugu horeeyay. waa guul gaar ah oo Somaliland la qabin. waa uga mahad celinaynaa wadada dheeray soo mareen. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Maxamed Caraale oo gabagabadii ka hadlay munaasabadda dhagax dhigga biyo xireenka ayaa u mahad celiyay Somaliland. baaq ayuuna dhanka kale u diray shacabka kale ee Soomaaliyeed, beesha caalamka iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo ku qotamay dhankooda ay kaalin mug leh ay ka ciyaaraan dhismaha biyo xireenka Beledweyne maanta laga dhagax dhigay.
anoo ku hadlayaa magaca gobolka waa idinka guddoonnay deeqdii aadna siiseen ee $600,000 ahayd 400,000 aad ugu tala gasheen mashruuca biyo-xireenka ee degmada Beledweyne ee muddada dheer dhibaatada soo noqnoqotay iyo $200,000 aad ugu tala gasheen dadka masaakiinta ahaa ee baahan ee weli maaragtay lisleeyahay waxa ma gaarin in la gaarsiiyo aad iyo aad ayaan idinka mahad celinaynaa runtii waxaad naga furteen waxaad noo samayseen daahfur waxaad naga qaadeen isbaaro runtii annaga dhib nagu ahayd inaan bilowno maxaa yeelay qof dhibaataysan oo xanuunsan oo baahan lagama yaabo inuu raadiyo wuxuu cuno iyo wuxuu cabbo iyo meeluu seexdo haddana uu ka fikiro xalkii waara mustaqbalka ahaa inuu yidhaahdo mashruucan ka fikiraa waa nagu dhiirigeliseen maanta rajo weyn ayaa halkan ka muuqata dhagaxdhigga halkan aad maanta dhagax dhigteen anoo ku hadlayaa magaca gobolka mashruucan waxaan ugu magac dareynaa si official ah waxaan ku mataanaynaynaa magaalada Hargeysa annagoo ku sharfeena wafdiga Soomaaliland ee maanta halkan yimid marka mashruuca wuxuu noqon doonaa mashruuca biyo-xireenka mashruuca Hargeysa ee biyo-xireenka magaalada Beledweyne mashruuca magacaas ayuu noo noqon doonaa haddii la yiraahdo magacaas ayaana sii doonaa haddii la yiraahdo Maxamed Ibrahim Siyaad Kalson TV Beledweyne